daawadayaal halkani waa 5TV anaguna waa Foos Ciid ku soo dhawaada qodobada wararka ugu doorka roon ee caawa qof oo looga maarmi waayo baaritaanka oo fasax jiray oo haddaan carabka ku dhuftaba qofka ahaa baaraya qoryaha xabadu ka dhacday inay lagu qaadato muddo bil ah 30 maalmood qofkaas kaligiis in fasax laga soo celiyo guddigii xukuumadda ay u saartay baaritaanka dilkii gudoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa maanta galka baarista kiiskaasi ku wareejiyay xafiiska xeer ilaalinta qaranka waxaan rabaa inaan iraado saaxiibkay ducaanku kaba mas'uuliyaddaas xoog badan maanta la wareegtay aad iyo aad aan kugu hambalyeynaa mar labaad iyo mar saddexaad gudoomiyaha cusub ee midowga wakiilada duulimaadka iyo dalxiiska Soomaaliyeed ayaa maanta la wareegay xilkii dhawaan loo magacaabay madaafiic lagu xusayo Amir Philip ayaa maanta laga riday guud ahaan dalka UK kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararka ugu doorka roona haatan u diyaar garooba qodobadaas iyo qodobo kale oo aad kaga bogan doontaan wararka caawa ee 5TV